Bismillaahi Raxmaani Raxiim kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka uu idin hayo Somali Technology News qodobada warka aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah madasha isbahaysiga xisbiyada siyaasadda oo lagu dhawaaqayo wafdi sahmin oo gaaray degmada Bardaale madaxweynaha Hirshabelle oo ka hadlay fatahaada beledweyne wafdi ka socda dawladda Soomaaliya oo shirar uga qayb galaya dalkaasi Qatar dawladda Soomaaliya oo baaq u dirtay Soomaalida ku nool Kenya daawadayaal intaasi waxa ay qodobada warka ugu door karoon kordhow waxaa daawan doontaan iyagoo faahfaahsan haase ahaatee hagaag mar kale daawadayaal ku soo dhawaada warkii oo fidsan safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Danjire Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa ugu baaqay Soomaalida ku nool dalkaasi Kenya in ay ka qayb qaataan gurmadka loo sameeyo dadka ka barakacay fatahaada webiga Shabeelle ee magaalada Beledweyne Ambassador Tarsan waxa uu sheegay in ay tahay waajib in dadka Soomaaliyeed iyo dawladooda in ay u midoobaan si dadkaas oo qaarkood banaanka jiifaan loogu gurman lahaa dadka Soomaaliyeed ee ku nool Kenya waxaan leeyahay u gurmada walaalihiina reer Beledweyne ee webiga ku fatahay dadka Soomaaliyeed ee ku nool Kenya waxaan leeyahay u gurmada walaalihiina reer Beledweyne ee webiga ku fatahay banaanka ayay jiifaan ka sokow ajnabi walaalahooda Soomaaliyeed ayay sugayaan dawladda iyo shacabka waa inaan u midoobno ayaa loo baahan yahay ayuu yiri Danjire Tarsan dadkii deganaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa badi ahaan ka barakacay magaaladaas kadib markii uu ku fatahay webiga Shabeelle waxaana ay xaalad bini'aadanimo ku haysataa deegaanka Ceel Jaalle ee duleedka Beledweyne wafdi uu hogaaminayo wasiirka boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Injineer Cabdi Cashuur Xasan ayaa ka qayb galay shirka iyo bandhigga tiknoolajiyadda ee Qatar iyo shirka kooxda heerka sare ee madasha ammaanka ee Munich ee loo yaqaan Munich Security Conference shirka iyo bandhigga isgaarsiinta Qatar oo ay ka soo qayb galeen madax ka socota dalal kala duwan ayaa waxaa daafuray amiirka dawladda Qatar Tamim bin Hamad Athani shirkan ayaa muddada uu socdo waxaa looga hadlayaa qodobo ay ka mid yihiin ammaanka internetka horumarinta iyo isticmaalka tiknoolajiyadda hal abuurka dhalinyarada iyo sidoo kale iyo doodo kala duwan oo la xiriira isticmaalka adeegyada xukuumaddaneebka ee loo yaqaan e-government iyo ganacsiga elektarooniga ee loo yaqaan e-commerce wasiirka boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ayaa sheegay in ka qaybgalka shirarka iyo bandhigyada noocan oo kale ah ay muhiim u yihiin wadaagista khibradaha iyo qorshayaasha gaar ahaan dalka Qatar oo kamid ah kuwa ugu horeeya dalalka Carabta dhinaca baahinta tiknoolajiyadda waxaana go'an in aan sahmino helitaanka dalal ururo shirkado iyo khubaro naga caawiya fulinta siyaasadda iyo istiraatiijiyadda qaran ee tiknoolajiyadda ee ay dhawaan wasaaraddu diyaarisay ayuu yiri wasiirka wafdiga wasiirka uu ka mid yahay maareeyaha guud ee hay'adda isgaarsiinta qaranka Cabdi Sheekh Axmed ayaa inta ay joogaan dalka Qatar waxa uu shir gaar ah la yeelanayaa wasaaradda gaadiidka iyo isgaarsiinta dalka Qatar shirkan oo looga hadlayo iskaashiga labada dal ee dhinaca isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda iyo isticmaalka tiknoolajiyadda ee ka hortaga musiibooyinka madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare oo ku sugan magaalada Beledweyne ayaa marka hore waxa uu ka tacsiyadeeyay dadkii ku dhintay fatahaada webiga si gaar ah doontii la qalimatay dad ay mas'uuliyiin ku jiraan waxa uu sheegay in fatahaada webiga Shabeelle ay dhamaan saameysay xaafadaha kala duwan ee magaalada Beledweyne isla markaana fatahaada hadda jirta ay tahay mid weyn oo dhici jirtay 50kii sano ee mar aad ugu xunnahay oo ka tacsiinayna dadkii ku geeriyooday fatahaadii ka dhacday magaalada Beledweyne sida gudoomiyaha uu sheegana qaarna meedkoodii la helay qaarna wali meedkoodii aan lahayn intii magaalada Beledweyne masiiba ka dhacday maanta waan soo wada dul marnay magaalada boqolkiiba 80 ama boqolkiiba 90 biyaha ayaa ka koreeya magaalada runtii magaalooyinka ugu waaweyn koonfurta Soomaaliya oo dhamaanteed laga soo wada baxay oo qof ku nool oo san jirin dhibka intaas la eg waa dareemi kartiin
laakiin meeshaas dhib xoog laha ka dhacay. hadda annaga waxa noo yaal hawl aad u weyn. waa sanadkii labaad oo ay soo noqotay fatahaaddan intaan la eg. waa fatahaadihii lagu qiyaasi jiray 50 sanaba mar. aniga sida ogsoontiin wasaaradda beeraha ahaa jiray aadan ula socdaa fatahaadaha iyo arrimaheeda. fatahaadahan oo kaleeto 50 sano mar ayaa lagu qiyaasaa. inay 2 sano isku xigta ay soo noqoto marka caadi maaha. sidaas daraaddeed arrintaas talay u baahan tahay. fagaarooyin badan waa ka jeedinay. ay ugu dambeysay kulankii SPF-ka hadda xamar ka dhacay in maamulka webiga Soomaaliya markuu soo galo iyo inta Itoobiya naga xigtaba ha ahaatee in laga wada tashado maamulka webiga ayaa saldhig u ah in wax laga qabto fatahaadda webiga Shabeelle. isaga oo sii hadlaya madaxweyne Waare ayaa waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray in ay u yaalaan shaqooyin gaaraya ilaa 3 oo kala ah. hawsha hadda noo taal waa 3 waji. wajiga hadda aan ku jirno oo wajiga ugu xanuun badana waa gurmadka, waa dadka go'doonka, waa dadka muxuu ahaa la yahay, waa dadka muxuu ahaa meel ay ku sugan yihiin aan la ogeyn, la soo baadi goobo, la soo bixiyo, la soo saaro. magaalada Muqdisho ayaa la filayaa in looga dhawaaqo madasha ay ku midaysan yihiin xisbiyada siyaasadda ee dalka oo ay ka mid yihiin madaxweynayaashii hore ee dalka Soomaaliya. xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaa sheegay in isbahaysigaas ay ku midaysan yihiin xisbiyo ay hogaaminayaan madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo 2 ka mid ah madaxweynayaashii hore ee dawlad goboleedyada. wararka soo baxaya ayaa waxa ay sheegayaan in madasha xisbiyada uu hogaamin doono madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed isla markaana looga tanaasulay in uu hogaamiyo. maalmihii la soo dhaafay ayaa waxa magaalada Muqdisho ka socday kulamo wada tashi ah oo ay yeelanayaan xubno ku midoobay madasha xisbiyada. waxaana magaalada Muqdisho lagu qabanayaa munaasabad loogu dhawaaqayo madasha ay ku midaysan yihiin xisbiyada siyaasadda. sidoo kale waxaa jirtay in la hadalhayay in xisbiga wadajir uu ka mid noqon doono madasha xisbiyada ee lagu dhawaaqayo. hayeeshee hogaamiyaha xisbigaas Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo diiday ka mid ahaanshaha sabab la xiriira inuu ka horyimid in madashu yeelato gudoomiye. taas bedelkeeda uu soo jeeday inay xiriiriye kaliya hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayaa sheegtay in dalka Yemen ka soo celisay dad Soomaaliyeed kuwaas oo la geeyay magaalooyinka Berbera iyo Boosaaso. dadkan oo tiradooda gaaraysa 114 qof ayaa qaxooti ku ahaa dalka Yemen ayaa laga soo qaaday magaalada Cadan. tirada guud ee dalka Soomaaliyeed ee hay'adda UNHCR ay ku soo celisay dalka Yemen. tirada guud ee dalka Soomaaliyeed ee hay'adda UNHCR ay ku soo celisay dalka Yemen ayaa noqonaysa 4800 iyo sanadkii 2017. dagaalada u dhaxeeya dawladda ay Carabtu taageerayso iyo Xuutiyiinta ayaa sanadihii la soo dhaafay halakeeyay dalka Yemen. waxaana dagaaladaas ku dhintay dad badan oo Soomaaliyeed. hay'ado ay ka mid tahay IOM ayaa sidoo kale isku howlay sidii dalka loogu soo celin lahaa dadkii Soomaaliyeed ee deganaa dalka Yemen. waxaa jira dad ay tiradoodu gaarayso 250,000 kuwaas oo wali degan dalka Yemen sida ay sheegtay hay'adda UNHCR. senatarada golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa Arbacada maanta ah yeelanaya mid ka mid ah kulamadooda caadiga ah. senatarada ayaa xalay loo qaybiyay fariin lagu furayo in ay soo xaadiraan kulanka maanta 3 bisha Oktoobar saacadu markii ay tahay 9 AM subaxnimo. ajandaha kulanka maanta ee golaha aqalka sare ayaa ah aqrinta koowaad ee hindisa sharciyeedka howlgabnimada, xaqsiinta iyo hibooyinka xubnaha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cunnada ayaa ka digtay duufaan ku soo wajahan gobolada Waqooyi iyo kuwa bari ee Soomaaliya muddo sanad ah kadib duufaantii Saqar ee burburka ka geysatay Geeska Afrika. saadaal ay sameysay hay'adda FAO ayay ku sheegtay in duufaantaas oo loogu magac daray Kiyaar loo malaynayo in ay la timaado dabaylo awood leh iyo roob kuwaas oo saameyn ku reebi doona Puntland iyo Somaliland. duufaanta Kiyaar ayaa ku soo dhawaanaysay waqooyiga badweynta Hindiya waxaana la filayaa in 4 ilaa 5 maalmood ee soo socda ay saameyso inta ugu badan ee Puntland iyo Somaliland ayaa lagu yiri digniinta FAO. waxa ay duufaanta ku hormari doontaa deegaanada Puntland 96 saac ee soo aadan 24 saac kadibna waxay u jihaysan doontaa Somaliland.
duufaantu waa ay adag tahay wayna roob badan tahay hay-adda caalamiga ah ayaana ku talinaysa in loo diyaar garoobo sidii looga jawaabi lahaa qaylodhaanta dadka. wafdi ka socda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu qayb ka yahay taliyaha qaybta saddexaad ee ciidamada AMISOM ayaa waxa ay ku sugan yihiin degmada Bardaale ee gobolka Baay iyaga oo u kuurgalaya xaaladda ka jirta degmadaas. degmada Bardaale ayaa waxaa ku soo rogmaday daadad ka dhashay roob maalmihii la soo dhaafay ka da'ayay degmadaas waxaana badi barakacay dadkii ku noolaa degmadaas. wafdiga ku sugan Bardaale ayaa waxaa ka mid ah guddigii gurmadka fatahaadaha kumeel gaarka uu magacaabay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gargaarka maareynta iyo masiibooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya, gudoomiyaha gobolka Baay, gudoomiyaha degmada Bardaale iyaga oo shacabka ka wareystay xaaladooda sida ay hadda tahay. bulshada ku nool ee degmada Bardaale oo u barakacay duleedka degmadaas ayaa waxaa hoy ay ka dhigteen geedaha ku yaala banaanka magaalada, dadkaas oo isugu jira hooyooyin, caruur iyo dad kale oo da' ah. General Alimu oo ah taliyaha ciidanka AMISOM qaybta saddexaad ayaa sheegay in ay door muhiim ah ay ka qaadan doonaan sidii bulshada degmada Bardaale gargaar loo gaarsiin lahaa, isla markaana kaalmadii ugu horeysay ay gaarsiiyeen bulshada degmada Bardaale. wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka maareynta iyo masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdiqaadir Sheekh Cabdi Baraka ayaa sheegay in wax la yaabo ay ku soo arkeen degmada Bardaale, qof kastana looga baahan yahay inuu doorkiisa ka qaato sidii bulshadaas loogu gurman lahaa.